iimaanku shaygu qiraa lagu qaboobaa in raxmaanka qowlkii fahmaa soor maqaayibe ee qololkii fardowsiye jannuu qoorsan weligiye qaangaadh haddii aad tihiin qiira lagu beeray waxyigeenna qiimaha ku sugan quursi ka ilaasha qur-aanka iyo sunnaha la ysku ladhayaan la kala qaadin qaadaa dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura quluubtiinna qiyaamaha xaggiisaa dhowaan loo qulqulayaaye dadyow qaadirkeennii wacnaa qaata amarkiisa. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد وحين نكبل بين آيات أفرتني يستيد كمذا سورة العنكبوت. قال الله تعالى إلهي بأوحل وما كنت ماذا هي النبي محمد تتلو من قبله قرآن كان كهر ما بعد أخري شربا من كتابه وح كتابه ولا تخذه بيمينك كعنت هذا كتاب كاكماد قري شرين إذن هدي أي تاسجير لها إلا ارتاب المبدلون والشكي لها ينبادل وضياش بل صرنا فهو آيات بينات وآيات على العد قرآنك في صدور الذين أوتوا العلم كوي علمي قال لسيين لا بهوده أي كتراني كسوغين آياتها وما يجحد بآياتنا آياتها يقال مضفر يوم الديدة إلا الظالمون dadka dulmi falayaasha ahun baa diidaya waqaaluu waxay yidhaahdeen kuwa dulmiga sameeya lawlaa unzila calayhi aayaatun min rabbi miyaa lagu soo dejiyo muxamed mucjisooyin rabbigiisa ka yimid qul waxaa tidhaa inama alaayaatu mucjisooyinku cinda allah ilaahay agtiisay ka ahaadeen oo isagaa bixiya wa inamaa ana nadiirun mubiin aniguna waxaan ahay mid dadka u digayo digniintiisu ay caddahay أولم يكفيهم بولهيد ميان مرخاتين ما وقفلان أنا أنزلنا عليك الكتاب إلى أنك وسود دشنا أنك كتاب كان ميان كتاب كاس معجزة ما وقفلين يتلى عليهم كتاب كاس ولا قد الأخرين إن في ذلك لرحمة كتاب كان حريص باكسوغان وذكرى وانا وقصوغان لقوم يؤمنون ضدك إله الربينية قل وحات إلى النبي محمد وكفى بالله أي كفى الله إلهي باكفلا بيني وبينكم أنيقا إيا إذنك نحرين شهيدا مرخاتي إلهي باينو غفلا يعلم وحو أقيها ما في السماوات والأرض وحلا وحا كسوغان سموين كي يرولك والذين آمنوا بالباطل كو الرميي حق الرضا وكفروا بالله إلهي حق أهانا كقالوا بي أولئك هم الخاسرون كواسهم باكلي قد قل دريست waxaynu ku dhex jirnaa aayaadkii maqruuc ahaa ama masduurka ahaa ee aqoonta asaaska u ahaa ee ummadaha lagu qancinayay ee ilaahay uu noogu mana sheeganaya subxaana wa tacaala oo kitaabkan kariimka ah uu ka kooban yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay ula hadlay dad badanina ka hor yimaadeen lana doodeen marka dadka sidoo qancin lahaa iyo sidoo uga xujo heli lahaa iyo cuskan lahaa isaga iyo inaguba ilaahay baa inoo tilmaamay haddii ay yidhaahdeen maxamed isaga iska kaansada alla uu ka jawaabay oo wuxuu yidhi oo ma adiga kitaabkan qur-aanka ka hor intii aan lagugu soo dejinin waxna maad akhri jirin waxna maad qori jirin ummi baad ahayd ummi-nimaduna qofkaan waxna qorin waxna akhriin dadka eed bay u tahay كما وناكسنا لكن نبي أمان بيوتي عليه الصلاة والسلام سي شك قيل الله يمن لها يمر مرسي ماشى وقبح أنت سوى أرهم وينو إلى هاي عدي وما ظهر عيد شيء يسول محمد با وحقرية ما وحقرية ما تشربا هذا نوع حنا علمي وشيء كتبته هذا نوع كوهي أنا الكتاب وكتبته بس إذا سي قريس الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر كتاب كذا قرنت إنه نبي يعني النبي الأمي الرسول النبي الأمي صدح راسين يسر راسين والرسول والنبي وأمي وإحنا آخرين وإحنا قرين حتى أنا علمي قالوا لما كصابر قضي هذه علامة إنه أهل كان إلهي كاني وحي جنب عطينس وما كنت تتلو من قبله أي القرآن من كتاب تنكير كاسوح تلمامة وحول با وحلا وح كتاب هذا خريج تمشي ولا تأخذوا بيمينك ميدك تاد أنا أحبابكم على القريش
dee midigtuun baana wax lagu qoraa idan lartaaba almubdiluun hadday taasi jiri lahayd waxyaabaha xikmadda ilaahay nebiga ummi uga dhigay waxa weeye baadil wadayaashu inaanay shakiin marmarsiiyeen helin kitaabkan adugu maad soo qorin manhajkeenina waa aayaad bayinaat aayadaha cadcad oo waadixa oo mucjisanimadooda cad dadka cilmiga la laabtooda ilaahay geliyey oo uu ku ilaaliyey waxa diida daalim qur-aanka xaqiisii siin waaye ilaahayna xaqiisii siin waaye marmarsiyey keenaan carabtiba waxay idhaahdeen kan soo dhaafba oo kari weyna isaga qur-aankan oo kale laakiin maxaa loo siin waayey maxamed aayaad mucjisooyin kale oo tii nebi muuse iyo tii nebi ciise iyo ambiyadii kale mucjisooyinkoodii oo kale waqaaluu lowlaa unzila calayhi aayaatu min rabbi aayadaha ay leeyihin maa lagu soo dejiye waa mucjisooyin qul inama alaayaatu cinda allahi wainamaa ana nadiiru mubiin adigu iska xawil waxaanad karayn hana iska lif qul maa asalukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin anigu dadka iska lifa maahe waxaanay karayn isku qaada marka aayadda ilaahay baa keenaye isagaa ka jawaabi ilaahayna uu ka jawaabayo wuxuu ihi awalam yakfihim annaa anzalnaa calayka alkitaaba yutla calayh oo miyaanay mucjisanimo ugu fillayn kitaabkan aan keene lagu akhriyayo kitaabkan aan keene lagu akhriyayo mucjisanimo wuu ugu filan yahay oo mucjisooyinka nebiga calayhi salaatu wasalaam mucjisada ugu weyn ayuu yahay kitaabkan qur-aanka ah siduu nebiguba xusay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixu lbukhaari ku sugnaa fii kitaabi اlictisaami bisunna bilkitaabi wasunna maa min nebiyin ilaa waqad uutiya maa aamana calaa milihi اlbashar wainamaa kaana aladii uutiituhu waxyan awxaahu allahu ilaya faarjuu an akuuna akarahum taabica nebi waloo ilaahay uu soo dirayba wuxuu siin jiray buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu siin jiray mucjiso ku habboon oo dadka sabab u noqda inay rumeeyaan oo dadka qancisa aniga mucjisada u weyne ilaahay uu siiye waxa weeyaan waxyigan ilaahay uu waxyooday waxaanaan rajaynayaa inaan noqdo nebiga ugu dad badan ama ugu taageerayaal badan ilaahayna wuu aqbalay rasuulku sala allahu calayh wasalam kullu lmucjizaati saabiqati qad insaramat ila alkitaab mucjisooyinkii hore o dhami rasuulladoodii bay raacayaan oo way la tegayaan laakiin mucjisadan qur-aanka cajaa'ibteedu waxa weye way jiraysa inta adduunku jiraba way jiraysa mucjisadan waa la hayaa rasuul walba wakhtigiisii waxbay dadku ku faanayeen oo aada ula weynaa oo aynu marar badan soo ishaarnay sixirkaa badnaa wakhtigii nebi muuse ushii baa la siiyey oo aamusiisa khubarada caafimaadka ee aada u yaqaano cilmiga caafimaadka ee wax bogsiya ama daweeya ayaa aada u badnaa wakhtigii nebi ciise oo dabeedna waxoodii wax ka weyn baa ilaahay uu siiyey nebi ciise oo yubri'u lakmaha walabras indhala-aanta iyo dhegala-aanta iyo afla-aanta iyo barasta iyo waxaasoo dhan ayuu ilaahay ku daweynayay gacantiisa wakhtigii nebi maxamedna fasaaxadda iyo hadalka iyo aftahanimada iyo gabaygaa badnaa oo la ysugu faanayo wixii oo dhan mid aamusiyaa ilaahay uu keena qur-aankana oo la yidhi bal suurad la midun keena marka aayadda ilaahay wuxuu ku xusayaa walam yakfihim annaa anzalnaa calayka miyaanay ku fillayn hadday mucjiso doonayaan qur-aankana ku filan qur-aanku faa'iidooyinkuu leeyahy waxaa ka mida waana naxariis waana waano ina fii dalika laraxmata wadikraa liqowmi yu'minuun nimankani warwareego oo markhaati keen oo mucjiso keen bay ka bixi weyde taana ilaahay uga jawaaba wuxuu uhi qul waxaa tidhaa fariinta gaadhsiiyo kafaa billaahi beynii wa beynakum shahiida aniga iyo idinku waynu isqabanaye dee ilaahay baa markhaati inoogu filan ilaahayna cilmigiisu uu xeerdheeriyo cir iyo dhul waxaa ku sugan wuu ogyahay yaclamu maa fi samaawaati wamaa fi lard laakiin laguu soo ururiye waxa lagu waladiina aamanuu bilbaadili wakafaruu billaahi ulaa'ika hum lkhaasiruun khasaaray ku socdaan nimankaas mar hadday baadil rumeeyeen oo sanam iyo cid aan ilaahay ahayn ilaahay xaq ahaana diideen khasaare u dah haddaynu dib ugu noqonno aayaadka wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaab walaa takhudhu biyamiinik ida lartaaba almubdiluun haddaad wax qori lahayd waxna akhri lahayd way shakiilaayeen waxay aayaddu inoo sheegtay ama ilaahay inoogu caddeeyey halka azaaxa tuhmata tanziihan lilnebiy waraxmata linnaasi liyu'minuu tuhmaaddii ilaahay meeshuu ka saaray sidaa uu caddeeyey buu uga saaray iyada oo nebiga ilaahay hufayuu baraxayo ummaddana u naxariisanayo si iimaan ay u helaan oo ugu qanciyo
aayadda waxaa ku sugan tawjiihun liahli اlislaam an yabtaciduu camaa yushawihu suurata alislaami wاlmuslimiin inay ka fogaadaan dadka muslimiintii wixii tusaale xun ku noqonaya diintooda waayo ilaahay tuhmaaddii gaaladu saareen waa kan ka jawaabay marka inagu tusaale wanaagsan baynu ku noqonaynaa diinta sida loo fahmaya iyo sida loogu dhaqmaya iyo sida dadka loo sharxayaba inaad diintii ku abtirsato aada had iyo jeer aanad ku dhaqmayninna suuraddii islaamkaad xumaynaysa wuu kaa xujo helayaa kii marmarsoonayay islaamkaad sheegaysa maad adigu ku dhaqantid buu kule adaa ku abtirsanaye markaa inta ummadaha lagu hanuuniyo ama lagu saxo qowlka in ka badan baa ficilkana lagu saxaa markaa qofka islaamka ku abtirsanaya ee muslimiinta ahi waa inuu sawirka iyo tilmaanta islaamka tuhmaadda ka ilaaliyo aanu xumaynin tusaale wanaagsan waa inuu noqdaa bal huwa aayaat bayinaat fii suduuri aladiina uutuu lcilm qur-aankani waa aayaduu ka kooban yihi aqoon-yahanka qalbigooda jiifa oo ku jira waxay aayaddu inoo tilmaamaysaa hada alqur'aan yuxfadu awala bisuduur uma bisuduur yuxfadu awala bisuduur uma bisuduur qur-aanka ugu horeyn waxaa lagu xafidayaa sadriga iyo laabta kadibna sadarkaa lagu ilaalinaya inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun ilaahay qur-aanka anaa soo dejiya oo ilaalinaya marka waa in laabta lagu ilaaliya aan sadarka qura la cuskan ilaa sadarka waaba lagaa leefi karaabe madbacaddaa kaa leefaysa oo shaydaanka iyo gaalkaa kaa leefaya oo kaa urursanaya marka waa inay jiraan malaayiin alxufaad intaasoo milyan oo muslimiinta ka mid ahoo xufaadoo qalbiga ku haya waana xaqiiqo jirto qur-aanka mar walba ilaahay laabtaa awliyada ilaahay buu ku ilaaliyaa iyo mu'miniinta dadkii aada ula dagaalamay qur-aanka waxaa ka mid ah midowda soofeeti quwaddii casayda inkaarta qabtay qof qur-aan soo qaada iyo meel lagu dhigo waa laga ilaalin jiray waxaa dhacday dadkii muslimiinta ahaa ee ku dhex noolaa waddankaa gaalada caruurtooda undergaroon bay ugu dhigi jireen qur-aanka dhulka hoostiisa goormay ku dhaadhicinayaan saddexda habeenimo carruurta la kicin jiray markaasaa godkaa la gelinaya qur-aankaa la soo qaybsiinaya marka waktigii iskuulku uu gaadho 7 subaxnimo ayaa ifka loo soo saaraya oo undergaroonka iyo dhulka hoostiisa laga soo saaraya iyagoo casharadii qaybsan bay iskuulka tegaya taa waxay sirtaa cadeeyeen berigii dambe midowga Soviet burburay jumhuuriyadii muslimiintuna ay gaar u go'een baa intaasoo xaafid soo bax oo tartankii ka qayb galaya waar xagee dadkan idin joogeen de aakhiraan wax quraanka ku baraynay bay maanaga ifkaba keenayba marka ilaahay baa ku ilaalinaya subxaanahu wa tacaala في صدور الذين أوتوا العلم آيات waxay noo muujinaysaa qofka xaafidka أن الحافظ من أولي العلم inuu ahlul cilmiga kamid yahay qofka xaafidka quraanka xafisanay dadka aqoonyahanka loo qirayo ilaahay halkan uga marxaati kacay waxa kamid ah qofka quraanka xafidsan oo fiirso waxa ilaahay uu leeyahay bal huwa aayaatu bayinaatu fi suduuri alladhiina uutul ilm dadka cilmiga la siiyay aqoonyahanka ah ayaa quraanku laabtooda ku jira marka dadka ahlul cilmiga waxa kamid ah qofka xaafidka ah sida daraadeed bay tahay qofku inuu macnaha quraanka barto oo waxa uu xambaarsan yahay macnihiisa iyo xigmadiisa iyo nuxurkiisa inuu fahmayo waa muhiim oo daayirta marka quraanka la xafiisiyo macnahoodana waa in la baraa si uu rabaayadii uga qaadan karo si uu ugu dhadhami karo aad bay muhiim u tahay علومتي قرآن كنا وأنو ده كفاية استايو وحي علم وبهاي قرآن كريم كأيواد جدد على قفك قرآن كحفظا سو مرخاتيجا إلى هاي أفرا وحقيقين كرا وأن الجاحد والتارك من الكتاب هو الجاهل قفك جاهل كأنه وقفك قرآن كديلي وحبنا كأقوني نبينا عليه الصلاة والسلام حوري الذي في جوفه شيء الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب على معنى حديث قفك آن قديه وحب قرآن كتير وحب قرآن كهي نبأ وحكم ذي جوري خرابة منع عمرنا عندنا وحكم الضيض مركم قرآن كإلهها كقدي سيادة ما أنت أوهي لكرت ورسي نوصى حسني القرآن أكبر معجزة للرسول
تهدي لمن تهدى تكفي لمن تهدى معجزة وين النبي هو قرآن كان كريم كأه وحنا ينفع ذا عدة إلهي وكد وين سبحانه وتعالى أو كهنونين أيوه مرخاتي وين هو إلهي مرخاتي ذوي بدينا ملائكة مرخاتي كعظام مؤمنين مرخاتي كعور رسول الله مرخاتي وحبنا بني آدم كان مرخاتية مرخاتي لكن وين هو إلهي قل أي شيء أكبر شهادة قل الله مرخاتي وين هو أيوه وإلهي آيات إنه آخرنا إلهي كعدي هل كان يقول قل كفى بالله شهيدا بيني قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا أنا إلهي بين أوقف الأمر خاطر مركاتي مرخاتيات صلوا ببيان شيئا يهدي استنسقان يهدي كائحران لكن إلهي مرخاتيك كوفر أيوه الدون كي آخرا بدون بكوس وصاريكو كالصورة أرمها صورة وحيابين آيات كفى إذا سنين ويا الله ينقو أنفعه وهذا ما أقوله وأستغفر الله والله سبحانه وتعالى. يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان